munaasabad lagu weyneenaya maalinta usha cas oo ay adeegsadaan dadka aragga naafada ka ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay ururada bulshada rayidka, ururada dadka naafada ah iyo mas'uuliyiin kale. Munaasabadan waxaa soo qabanqaabay iskuulka dadka aragga naafada ka ah ee Albasiir iyo ururka midowga noolayaasha Soomaaliyeed. Munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf iyo arday kala duwan kuwa oo muujiyay dareenkooda ku aadan maalinkan weyn. Ugu dambeyntii in ka badan 20 qof oo dadka aragga naafada ka ah u badnaa caruur dhigata ardayda iskuulka Albasiir ayaa wadooyinka magaalada Muqdisho socod ku soo maray si ay u gaarsiiyaan bulshada ahmiyadda usha cas ay leedahay. Ay. maanta faraxsanahay inaan soo qayb galo maalinta usha cas anagana wax walba ku barana ama waxbarasho u tagna buuxeeda maadaama aan social worker inaan garab u ahaan mar walba aan dhan walba kala shaqeyno inay ahaa inaan u sameyno advocate sida aan u doodno inaan xaq u soo dhicino sababtoo ah maaha inay meel la yihiin inay dad oo aan shaqaysan karin dad wax qabsan karin maaha waxaan ka socdaa team Axos aad ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqono kala qayb qaadano dabaaldega maalinta usha cad waxaa isleeyahay waa maalin mudan oo dabaaldego waxayna bulshada wacyigeeda ay sare u qaadaysaa in dadka ay ku baraarugaan dadka aanan dadka u wata usha cad in maxaa la dhahaa kan qayb ka yihiin bulshada aanan lagu takoorin waxa ay wataan laakiin lagu soo dhaweeyo waxaa isleeyahay sidoo kale waxay qayb ka qaadanaysaa in dadkii sare loo qaaday wacyigooda mar labaad loo ogaado qofka usha cad wato inuu qayb ka yahay bulshadii in waxa markaas looga baahan yahay ay ka qayb qaataan anagana ku faraxsanahay mar walbana qayb ka naanay waana garab istaagsanaan doonaa kasoo shaqaalahaas ahaan iyo ka aqoonsi ahaan hadii ayna waa maanta ku beeganta waxaan ka turjumaynaa ushan any things blind use so walaalahay dhammaantiina waa idin salaamay aad iyo aad aan arag la'aanta xaqiiqatan ugu faraxsanahay ugu xamadna Soomaaliyeena waxay ku xun yihiin ma ixtiraamaan dadka aragga la xaqiiqatan so waxaan rajay boqolkiiba inay dadka aragga la ay ku ixtiraamaan si yihiin anigoo ku bilaabay magacayga Asiim Maxamuud oo dhigata ardayda oo kamid ah ardayda dhigata iskuulka Albasiir School for the Blind horta run ahaantii ushaan aniga ahaanteeda markii laga hadlayo muhiimad aad iyo aad u weyn ayay ii leedahay soo maalin walba marka aan aadayo goobaha waxbarashada aad iyo aad ayaan u isticmaalnaa waxaan idinku soo talgalay gabaygaas oo ka hadlaya naafanimada ma ahan awood la'aan. Disability is not inability. I can speak right and read just the way you speak right and read. Disability is not inability. I walk independent, for I want to become independent. I use my white cane as simple visual and family. White cane day, the world programming. Seeing is belief in the programming, but it has to start with you. Respecting the white cane can in the living, counting journeys, and creating the call of opportunity for all in December. Disability is not inability. Thank you. Ismaaciil Axmed maamulaha iskuulka Albasiir iyo Yuusuf Sheekh Cali Cabdu ayaa waxa ay sameeyeen wacyigelin iyagoo markaasi u sameeyay gaadiidka dadweynaha. runtii waa maalin wacyigelin ah ciidan kala duwan ku darmaarata ii sheeg dameeraha in ay qofkii ay ushaan ku arkaan ay ka joogsadaan ay u istaagaan dadka kale waxaan leenahay calaamadan qofka aad maanta ku aragtaan u aqoonsada qof maaragtay ii sheeg arag la inuu yahay waa maalin loo baahan yahay dadka maaragtay in la baro
misana ay ogaadaan dadka maaragtay darawaliinta ah usha qiimaheeda oo aad iyo aad maaragtay sanad walbo dad nooga dhaawacmaan ama u geeriyoodaan maxaa yeelay waxay u baahan tahay waa in la educate gareeyo dadka maaragtay darawaliinta oo iskool wiidada dadka la baraayo la ogeysiiyo imtixaankana lagu daro usha cad calaamadaheeda iyo qiimaha leedahay si maaragtay dadka maaragtay aragga la ay u socdaan wadooyinka comfortable waxaan ku wacyigelinayaa guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka gobolka Banaadir in ay sameeyaan maaragtay wadooyin dadka maaragtay aragga la ku habboon ay ku socon karaan marshibiyeedyada si ay maaragtay ay u socdaan comfortable ardayda iskuulada markay imaanayaan oo aragga la aad iyo aad ay ugu dhiban yihiin marshibiyeedyadii guri waxaa laga dhistay doqoshiyo way burbursan yihiin waxaan jeclaan lahaa in mar walba maaragtay laga fikiro dadka aragga la meeshay mari lahaayeen si ay ardaydeena maaragtay comfortable ugu socdaan anigoo ah maamulaha iskuulka Albasiir aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in bulsho aad iyo aad u qiimo badan oo inta la eg nagala soo qayb gasho maanta xafladii ilmihii maaragtay boardingka ahaa iyo kuwii maalintii banaanka imaanayay farxadooda lama soo koobi karo waxay dareemeen in la jecel yahay waxay dareemeen in dad asxaab ay leeyihiin oo taageeraynayo in loo shaqeeyo waxaan leenahay macallimiinta Albasiir aad iyo aad ugu mahadsantiin idinkana sidii aad ugu dhabar adeegtiin oo mushaar la'aanta aad ugu shaqaysiin ardayda aad wax ku baraysiin bulshada caalamkana weynay arki doontaa maalinna waa nigula abaalgudi doonaa insha Allah abaalka aad u gasheen ardayda aragga la ee Albasiir School si maaragtay horumarkay gaareen waxaan leenahay imtixaankii ugu dambeeyay inay ardaydeena ay takhasus weyn ku gaareen A- B+ iyo B kala keeneen laba wiil iyo gabar sharaf ay u tahay bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay usha cad waa shay qaaliya waa la tixgelinayaa aad iyo aad ina sharaf u leedahay usha cadna mar walba maaragtay ururkan ugu caawiyo sisan waa u mahad celinaynaa maadaama ay mar walba maaragtay qalab iyo usha ay nala garab taagan yihiin waxaan leenahay sisan ay jir insha Allah wax walba waxaan leenahay qof walba na caawiso oo uu weeyahay maaragtay maamulka gobolka Banaadir waxaan leenahay insha Allah meeshaas ka sii wada Ay. أنا